بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين maanta waxa uu ka dhacay xaafada nafaqada ee magaalada Boorame waxa ku gubtay guri baybay ah ama bas soo taqaanaan ayaa ku gubtay waxa ciidanka dibdemiska laga soo wargeliyay lambarka 990 ama 99 oo hadii aad garaacdo ku soo dhacaya teleefoonadan horteeda yaala oo ciidanka dibdemiska gobolka Awdal degmada Boorama ay heegan ku yihiin 24 saacadood inay u gurmadaan ummadooda oo ay badbaadiyaan naftooda iyo maalkooda ilaahay dabna uma keene waxaan ku wacyigelinayaa bulshada inay hadii ay la kulmaan dab ay soo garaacaan isla marka ay dabka arkaan 990 ama 99 inaad soo garaacdaan waxna laga ma horeysiinayo waxna laga ma dambeysinayo waa saddexda lambar oo kaliya 990 ay ma soo garaacsan si degdeg ah idin soo gaaraya ciidanka gurmadka ee la dagaalanka dabka ee gobolka Awdal degmada Boorama waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa xaafadda nafaqada oo sida fiican noola shaqeysay dabkaas gurigaasi wuxuu ku yaalay meel isku rarana oo jiingada iyo boolal badan ay ku yaalaan isla boolka gubtay oo kaliya ay ku xakameeyeen ciidanka dibdemisku halkaas ay ku baqtiyeen boolkii intii kala hareereedana ay ka badbaadiyeen bulshooyinta waxaan leeyahay waxay noo soo kordhay dibdemis aynu u baahnayn dibdemis hadiya jeer lagu raadin jiray telefoon ama meerin la garaaco ama darawal in la raadiyo laakiin maanta waxa ka xiga telefoonka gacanta haysato inaad ka soo garaacdo kaliya 990 kadibna ciidanka dibdemiska Boorama oo diyaar idin ku ah halkan ayaa waxay ka qabanayaan waxay koornayaan waa ciidankii dibdemiska maxaan ku qabanaa kadib waxaad si taxaddi loogu tilmaantaa gurigu halka uu ku yaalo degmada uu ku yaalo xaafadda magaceeda wadada ugu dhow ee loo soo marayo meesha ugu caansan ee ugu dhow ee lagu garan karo gurigaasi iyo inaad wadada laga soo laabanayo aad u istaagtaan bulshada waxaan uga mahadcelinayaa sida wanaagsan maanta noola shaqeysay mar labaad ee xaafadda dabkaanu ka soo baqtaynay aad baad u mahadsantihiin yaan la hilmaamin nambarka 990 ama 990 wad arkaysaan telefoonadaasi 24 saac ay heegan idinku yihiin ciidanka dibdemiska degmada Boorama aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh